Ku soo dhawaada janalka Dhalean Tube. Sheekadan maanta waxay ku saabsan tahay amiiradii luulka. Tani waa guriga amiirada luulka, goobta ay ku nooshahay gabarey maayada Alma. Waxay awood u leedahay inay samayso luulal aad u qurux badan. Awoodeeda waxaa ka mid ah inay luulkeeda uu noqdo geed, kadib geedkaas ayaa dhala luulal badan. Waxayna la nooshahay eedadeed. Hadda eedadeed ayaa ka soo laabatay suuqa, waxayna u sheegtay inay suuqa uga keentay hadiyad. Way u mahadcelisay kadib way is soo raaceen. Intay dhexda sii socdeen ayaa Alma eedadeed waxa ay ka codsatay in ay bixi karto dhalashadeeda, waayo waxay u baahneyd inay aado bannaanka. Balse eedadeed ayaa ka hor imaaday, waxayna u sheegtay inay tahay meeshaas meel aad u halis badan, loona ogoleen inay aado ilaa ay ka noqonayso gabar weyn. Lana ayaa eedadeed ku dhahday waxaan jiraa 17 sano, waana bixi karaa. Balse eedadeed ayaa ku dhahday markaad weynaato aniga ayaa ku bixin doono, inta ka horreysa ma bixi doontid. Lana ayaa arrinkaas aad uga xanaaqday. Markii ay baxday eedadeed ayaa waxaa ka dhacay warqad. Kadib warqaddii ayay Lana soo qaaday. Markii ay akhrisay warqaddii ayaa waxay ogaatay inay tahay warqad xaflad looga wacay qasriga boqorka, ayna aadayaan gabarey maayada oo dhan, ilaa Lana ma ahane. Lana ayaa dhahday waa inaan aadaa. Kadibna waxa ay ku fikirtay inay ka dhuumato eedadeed ayna aado qasrigaas. Markii habeenkii la gaaray ayay seexatay Lana. Eedadeed markay aragtay Lana oo hurdo ayay baxday, balse Lana ayaa ka soo daba baxday eedadeed si ay u aado qasriga. Intii ay soo socotay Lana ayaa markay imaaday qasriga aragtay, waxay la dhacday quruxdiisa iyo dhaldhalaalkiisa. Waxay sugtay ilaa ay ka galisay eedadeed, kadib ayay imaaday qasriga albaabkiisa. Waxayna is dhahday kulligood aniga ayay ila eg yihiin, ma aqaan waxay eedaday ii reebtay aniga keligay. Waxayna soo bixisay luulasheedii, kadib waxay bilowday inay luulkii korkeeda ku xardhato si ay ugu ekaato mid qurux badan. Kadib waxay ku fikiraysay waxa ka maqan. Markii dambe ayay samaysatay taaj ka samaysan luul. Kadib sidaa ayay ku gashay qasrigii. Qasriga gudaha aad ayuu uga qurux badnaa. Markii ay Lana imaaday qasrigii ayaa waxay aragtay dadkii oo hal mar madaxooda raariciyay. Markii ay soo gashay safkii ayaa waxay aragtay boqoraddii oo soo gashay, waxaana la socday ciidankeeda. Markii ay hormarisay boqoradda dadka ayaa waxaa ka dhacay taajkeedii. Kadib gabar meesha taagneyd ayaa bilowday inay ku qosasho boqoradda, balse boqoradda ayaa aad uga xanaaqday. Waxayna adeegsatay sixirkeeda si ay gabadha uga fogeyso qasrigeeda, waxayna u tuurtay bannaanka kore. Kadib dadkii ayaa madaxooda u raariciyay si ay u raaligeliyaan. Boqoraddii ayaa si kibir leh u dhahday aniga ayaa ah boqoraddiina. Qofkii isku daya inuu anigu igu qoslo waxaa la gelin doonaa xabsi, waxuuna ku jiri doonaa inta noloshiisa ka dhiman. Waa inaad aniga ixtiraamtaan, waayo aniga ayaa ah boqoraddiina. Markii ay boqoradda dhammaysatay hadalkeedii ayaa waxay soo aaday si ay u fadhiisato carshigeeda. Lana ayaa ka baqday boqoradda, waxayna is dhahday waa inaan aadaa guriga markay dhammaatay xafladda. Balse boqoradda ayaa ku amartay dadka dhan inay korteeda ku dheelaan, waa ayna ku waafaqeen, waayo way ka baqayeen. Markii la bilaabay in la dheelo ayaa waxaa soo galay goobta Lana. Kadib boqoradda ayaa aragtay taajkii u xirnaa Lana, wayna ka maseertay. Waxayna ciidankeeda ku amartay in Lana loo soo qabto si ay uga qaadato taajkeeda. Askarigii ayaa soo aaday dhanka Lana si uu u fuliyo amarka boqoradda. Intii uuna soo gaarin Lana ayaa hal mar Lana waxaa gacanteeda qabtay qof aan la arkaynin, wuxuuna u jiiday dhanka kale. Kadib Lana ayaa ku dhuumatay dhagax hoostiisa, waxayna ogaatay inay askarta raadinayeen si looga soo qaado taajkaas, balse eedadeed ayuu ahaa qofkii qabanayay. Waxayna ka badbaadisay inuu boqoradda gacanta ay ku dhigto. Kadib Lana eedadeed ayaa soo kaxaysay. Markii ay keentay meel ammaan ah ayay bilowday inay canaanato, waxayna ku dhahday soo kuma sheegin inaadan soo bixi karin, aniga ayaa ku bixinaya markaad weynaato. Lana ayaa ka cudur daaratay eedadeed, balse eedadeed ayaa diiday. Kadib Lana ayaa eedadeed weydiisay waxa ay boqoradda u rabto katiinka. Kadib eedadeed ayaa dhahday marka aad weynaato ayaan kuu sheegayaa, ee soo bax hadda aan aadnay gurigeena. Balse Lana ayaa diiday, waxayna dhahday kama tagayo halkan ilaa aad iiga sheekayso. Lana eedadeed ayaa bilowday inay u sheegto xaqiiqada,
waxa ayna ku dhahday, anigu ma ihi hooyada. Boqoradda hadda joogta iyo hooyada waxa ay ahaayeen laba gabdhood, waxaana qabay boqorka, balse hooyada ayaa lahayd awood ay ku soo saari karto luulka. Sidaa daraaddeed boqorka ayaa jeclaa, waxa uuna ka dhigay boqoraddiisa. Eedadeed halkaas ayay ku maseertay, waxa ayna ku fikirtay sida ay ku dili lahayd boqoradda. Kadib ayay bilowday inay u qorsheyso, waxayna ku dishay hawadeeda. Kadib boqoradda gabadheeda waxaa korinayay Lana eedadeed, wayna soo kaxaysay si ay uga soo qariso boqoradda. Sheekadani halkaas ayay ugu sheegtay. Lana ayaa bilowday inay oyso, waxayna ka xumeyd waxa ku dhacay hooyadeed. Boqoradda ma ayna dhibaateynin Lana hooyadeed, waayo waxay u baahneyd awooddeeda. Kadib waxay soo kaxaysay Lana hooyadeed, waxa ayna keentay meel xabsi ah si ay ugu xirto, balse Lana eedadeed ayaa daba socotay si ay u aragto meesha ay geyneyso. Waxa ay keentay hoolal aad u madow, wayna ku xirtay meeshaas, waxayna ku dhahday ilaa aad awooddaada iga siiso, halkan lagama soo furi doono. Lana ayaa dhahday, waa inaan soo furnaa hooyaday. Kadib waxa ay ku fikireen qorshihii ay ku soo furi lahaayeen. Markii la gaaray habeenkii ayaa Lana eedadeed waxay iska dhigtay hoos si ay u soo lumiso ciidanka. Markii ay ciidanka baxeen ayaa Lana waxay ka faa'iidaysatay fursaddii. Kadib waxa ay gashay boqoradda qolkeeda. Siday u soo socotay ayaa waxaa soo daba ordayay ciidanka, balse eedadeed ayaa awooday inay lumiso. Waxay imaaday sariirta boqoradda. Kadib waxa ay rabtay inay ka soo furto furooy ku xirnaa oo ahaa katiinka boqoradda, balse markii ay katiinka qabatay ayaa waxaa soo kacay boqoraddii. Wayna soo istaagtay, waxayna ku dhahday, waxaan ku sugayay muddo aad u dheer si aan kaaga qaato awooddaada. Waxayna ku dhahday, ma doonaysaa inaad la kulanto hooyada? Boqoradda ayaa rabtay inay Lana u dirto xabsigii sida hooyadeed oo kale, balse waxaa ka soo gaaray eedadeed intii ayna qorshaheeda fulinin. Waxayna ka soo furtay katiinkii furaha ahaa, waxayna u dhiibtay Lana. Lana markay katiinkeeda heshay ayaa waxay soo orday si ay u soo furto hooyadeed, balse waxaa soo daba kacay ciidamadii. Markii ay imaaday meesha ayaa waxay aragtay xabsiga oo waxaa ilaalinayay 3 xayawaan, waxayna ahaayeen kuwo aad halis u ah. Kadib waxaa soo gaaray ciidamadii boqoradda. Lana markaan waxa ay gashay dhibaato aad u weyn, waxayna ku fikirtay xalkeeda. Kadib waxa ay soo bixisay luulkeedii, waxayna ku soo tuurtay 3dii xayawaan. Xayawaanadii ayaa ka xanaaqay Lana, waxayna ku soo ordeen dhankeeda. Kadib Lana ayaa u banaysay xayawaanadii, waxayna ku dhaceen 3dii nin oo ciidanka u ahaa boqoradda. Halkaa ayayna ku suuxeen. Lana ayaa 3dii nin haddana luulkeedii u adeegsatay si ay u xirto, waa ayna ku guuleysatay xiritaankooda. Markii ay nimankii xirtay kadib, Lana ayaa u soo orday si ay u soo furto hooyadeed. Markii ay imaaday xabsiga albaabkiisa ayaa waxaa ku soo dhacay duufaantii boqoradda. Boqoradda ayaa ka daba imaaday Lana, waxayna bilowday inay qosasho, waxayna rabtay inay disho Lana, balse Lana ayaa bilowday inay iska caabiso boqoradda. Kadib waxay luulkeedii siisay geedka hoosteeda yaallay si uu u soo koro, waxa uuna u noqday difaac. Boqoraddii ayaa xanaaqday, kadib waxa ay soo bixisay duufaanteedii oo dhan si ay Lana uga hortagto, balse Lana ayaa samaysatay difaac kale ayada. Markii ay Lana daciiftay ayaa waxay isku dayday inay isdhiibto, balse waxa ay aragtay luulkii ku xirnaa 3dii nin oo u soo socda dhanka boqoradda. Kadib fursaddaas ayay ka faa'iidaysatay, waxayna kontarooshay luulkii si ay ugu soo dhacaan boqoradda. 3dii nin markii ay ku dhaceen boqoradda ayaa waxa ay ku dhex dhacday duufaanteedii, waxayna u duushay meel. Lana hooyadeed waxaa u soo noqday boqortooyadeedii, waxaana ka dhacay taashkii. Waxaa ku qosashay gabadhii, balse markaan waxba lama yeelin, waana la iska daayay. Waxay ku noolaadeen nolol aad u farxad leh, halkaa ayayna ku dhamaatay.